haddii wasaaradda arrimaha dibadda ama dawladdu ay qaban qaabiso in la isugu soo baxo oo la taageero mashruuca ictiraafka aad iyo aad bay wanaagsanaan lahayd oo sawiradaas meel walba way gaadhayaan haddii imika masalan la tago khayriyada Donald Trump sawirkiisa iyo calaamada Mareykanka la qaato wax weyn bay ka tiri lahayd madaxweynihii hore Muuse Biixi Cabdi isagoo qudhiis ugu tagay Mareykan oo hay'adda naftarkeeda way kulmeen markaas siyaabo badan baa dee ay u gaadhaysaa Donald Trump inuu helo muxuu ahaa codsiga nagu ictiraaf Somaliland. علي إبراهيم جامع قدومي هو بنجي Somaliland أو قيبة كم إذا وربعين تقولها الله هوتيل واي هاوس مقالة هرقيسة أي واحد أوكها الله أرمها أقونسيجا Somaliland وحنوصف فاسن وهو بحيي أقونسيجا يسيدو كله إن Somaliland أن هذا الله قصن هور الله أقونصدي لأنك كله وحكي وديني حالة سياسة Somaliland علي بغدادي قدومي هو بنجي أوكها الله أي شيء فرصة uga faa'iideysan inaan u mahad celiyo halkan ka salaamo madaxweynaha Jamhuuriyadda Somaliland mudane Cabdiraxmaan Maxamed Cabdullaahi Cigaal wasiirkiisa arrimaha dibadda iyo golihiisa wasiirada ee xukuumadda wadajir iyo waxqabad oo ku howlan raadinta ictiraafka Somaliland mideynta nabadeynta bulshada iyo horumarka guud ahaan Somaliland inta markaan ka gudbo waxa jira sidaas sheegtay in baryahan baa durbaanka ictiraafka Somaliland meelo badan laga tumayay oo waliba dalka Mareykanka ha ugu badnaato waxayna ku horeyseen horta maxaa sababay durbaankan iyo ictiraaf raadintan hay'ad waxaan jecelahay xog kooban idinka siiyo hay'adda la yiraahdo Heritage Foundation oo ku taala dalka Mareykanka lana aasaasay 1973 Heritage Foundation waa xarun fikreed ama xarunta fikirka ama la yiraahdo think tank baa loo yaqaan Ingiriisiga ta ugu weyn dalka Mareykanka weeye membersku ama taageera waa ilaa 10 milyan oo ruux waana xarun jahaysa siyaasadda Mareykanka dhinaca loo soo cunayo iyada sii dirista waxa ka shaqeeya ilaa 400 oo aqoon-yahan oo professora oo jaamacadaha ka dhiga marka tusaale ahaan barnaamijka umminka ku shaqeeyo Donald Trump oo la project 2025 hay'adda Heritage Foundation ayaa soo diyaarisay oo soo bandhigtay tiibaanu ku shaqeeyaa maanta yani barnaamijku ku shaqeeyo markiiba ku dhaaqay wax diyaarsan oo bisil ayaa loo keenay way hay'adan ama maxadkan wuxuu taageeraa muxuu ahaa xisbiga Republicanka conservative-ka waxaana ku xidhan mudanayaal badan oo aqalka senatorska iyo congress-ka hay'adaasi marka laga yimaado mashruuca ay u diyaar gareysay Donald Trump waxay sameysay daraasado fara badan oo ay ka sameeyeen Somaliland sidii loo ictiraafi lahaa marka daraasadaha ay sameeyeen ama ololaha ay ololeynayeen in la ictiraaf Somaliland waxay ka dhaxarkeen danaha Mareykanka inuu Mareykanku u baahan yahay inuu Somaliland ictiraafo ayay ka dhaxarkeen waxaan soo qaadanayaan ilaa 6 qodob 7 qodob oo ay ku saleeyeen sababaha uu Mareykanku ku qasba inuu ictiraafo Somaliland qasabku ma aha laakiinse inuu tixgeliyo ictiraafka Somaliland qodobka ugu horeeya ugu muhiimsan waxa weeyaan dekedda airportka Berbera oo ku talan biyo Mareykanka la yiraahdo Bab al-Mandab oo meesha marto tijaarada Asia iyo Europe iyo Carabtaba isaga gooshta Mareykanku wuxuu military base ku leeyahay Djibouti waxa ka ag dhow Shiinaha oo isaguna kale base marka Mareykanku waana iska soo horjeedaan oo Mareykanku ma jecla Shiinaha inay deemeel wada joogaan marka taasna waa sabab ay Heritage Foundation u soo jeedisay inuu Mareykanku Berbera u soo guuro Djibouti si oo Shiinaha hadii aanay muxuu ahaa way isbasaasayaan hadii doonaan marka taas waa mid dekadii oo dhisan airportkii oo dhisan oo casri ah ayuu soo jeedisay waa qodobka ugu horeeya ee istaraatiijiga ah Mareykanku ay u doonayso inuu u soo guuro muxuu ahaa Somaliland qodobka labaad waxa weeyaan Taiwan dalka la yiraahdo Taiwan iyo Shiinahu
dee waad ogtahay waa laba dal oo mid ahaan jiray markii dambena kala tegey sidaa Soomaaliya iyo Soomaaliya marka Taiwan saaxiib baynu leenahay Mareykanka waliba Congress muxuu ahaa xisbiga Republican waxay taageeraan Taiwan marka qodobka waxa weeyaan Somaliland oo xiriir wanaagsan oo adag la leh dowladda Taiwan oo diiday cadaadiska uu Shiinuhu saarayo Somaliland lacag buu ugu ballan qaaday mashaariic buu ugu ballan qaaday laakiinse waa waynu ka dhagaadeegnay qodobka saddexaad weeyaan muxuu ahaa Somaliland oo dal dimuqraadiya oo 5 madaxweyne 6 madaxweyne isbedeleen oo ugu dambeeyay Cabdiraxmaan Cabdullaahi oo madaxweynaha lixaad golayaasha baarlamaanka oo doorasho ku yimi muxuu ahaa dowladaha hoose oo doorasho ku yimi marka dal dimuqraadiya oo si salmiya ula kala wareegay xukunka oo hal qof aanu ku dhaawacin kula dhiman weeyaan qodobka kale ay u bandhigeen inuu yahay marka inay dimuqraadiyadda taageeraan Mareykanku taasna waa qodobka afraad waxa weeye xasiloonida iyo nabadda ka jirta Somaliland iyo sidaan uga hortagnay argagixisada caalamiga ah iyo burcad badeedda ku xiran gobolka intiisa kale qodobkaasna waa qodob kale oo ku xusan daraasadaha ay Heritage Foundation samaysay waxa kaloo jira ugu weyn Somaliland 1960 26 June markii xornimada aynu qaadanay waxaa ictiraafay 35 dowladood 35 dowladood oo ay ku jiraan 5 wadan ee markaas Security Council-ka ku jiray oo Mareykanka Ingiriiska Faransiiska Shiinaha iyo wixii loo jiray Soviet Union ee kala burburay Shiinaha markaa waxa uu fadhiyay Security Council-ka Taiwan oo bariga loo jiray Formosa Shiinahan weyn ee imika aynu naqaano mar dambe 1972 baan filayaa ayuu kursiga ku fadhiistay marka imika halkan waxa ku hayaa midalan اعترافكي برجع اعترافك لبون شروان اعترافنا وحلا سدري شري تليجرام ودورد اعتراف الستار أيه سدري شرتي دورد مركا قاضتي قبني بده مركا يمكن كمرينكو وهوي اعتراف كيسي 26 جون 1960 أيو صدرين كله وسير هذا يهرجس دقنا هذا نيجي آخريو وحصوق ريورتا مصر كريستيان هارتر وها سكرتير اوف ستيت يونايتد ستيتس اوف امريكا وسير الخارجيه دلك مرينكا ee markaa joogay ayaa soo diray taarkan waxaana madaxweynaha president Eisenhower waa Grant baan filayaa Eisenhower markaa wuxuu ku soo qoray taarkiisa Your Excellencies Council of Ministers of Somaliland Hargeysa Your Excellencies I extend my best wishes and congratulations on the achievement of your independence. This is a noteworthy milestone in your history, and it is with pleasure that I send my warmest regards on this happy occasion. Mr. Christian A. Harter, Secretary of State, United States of America. Marka Heritage Foundation documents badan bay haysaa oo caddeynaya markii ay Somaliland qaadatay gobonimada iyo dalka ictiraafay dalka kale ictiraafay waxa kamid ahaa Sudan, Libya, Yugoslavia, Ethiopia, Ghana, Israel wadamo badan Egypt wadamadaas oo dhan ictiraafeen muxuu ahaa Somaliland waana ku jirtaa UN archiveska qoraaladii ay ku ictiraafeen marka Heritage Foundation waxay leedahay wadankani wadan madax banaan buu ahaa oo ka horeeyay Soomaaliyada kale ama Soomaalida Talyaaniga marka iyaga xaq u leh inay kursiga ku fadhiistaan lana ictiraafo marka dooda ay ka soo adag waana legal bay leeyihiin madax banaanidooda marka doodahaas bay ku fadhiisiyeen qadiyadooda iyo muxuu ahaa doodooda marka waxaa taageeray mudanayaal badan oo ka tirsan golaha Senatka iyo golaha muxuu ahaa representativeska oo halkan mesela idinku tusoono muxuu ahaa kuwa yihiin
waxaa ka mid a xubnaha taageeray ee awoodda badan ee qoraalada iyo dooda heritage foundation siiyey muxuu ahaa momentum senatorka ugu dambeeyey marka la yidhaha senator ted cruz oo number 2 senator scott perry number 3 republic representative tom tiffany number 4 rep andy ogles number 5 rep bart harrigan number 6 ambassador herman cohen number 7 ambassador tibor nagy number 8 ambassador peter pham number 9 senator jim risk number 10 senator chris van hollen number 11 senator mike rounds koob iyo tobankaa senator iyo diblomaasi iyo safiir oo very powerful ah aadna looga yaqaan maraykanka waxay ka mid yihiin qolooyinka u ololeynaya muxuu ahaa aqoonsiga somalilan waxaa kaloo jira iyaguna hay-ado fara badan oo la mid ah heritage foundation oo ah think tanks very powerful ah oo 7 ah ayaa iyaguna sida heritage foundation daraasado iyo qoraalo badan u gudbiyey senatka iyo congreskaba waxaa ka mid ah heritage foundation waanu sheegnay number 2 american enterprise institute weliba aad iyo aad ugu ololeysa halkan bay dhowr jaaran kula kulmay madax ka mid iyaga oo qoraalo ka sameynaya number 3 hoover institution number 4 atlantic council number 5 center for strategic and international studies number 6 hudson institute number 7 foundation for defense of democracy iyaguna waxa weeyaan 7 think tank oo madax bannaan oo daraasado iyo qoraalo sameeya oo taageersan aqoonsiga somalilan marka waxaa la isu geeyo qoraalada iyo talooyinka maanta waxay hor taallaa masar donald trump qolooyinkan taageerayaasha ee soo qorayana waa isla xisbigiisa waxa weeyaan republican partyga marka waxaan filayaa meel uu ka dhaafo inaanu helayn uu ka baxo isagoo qudhiis waa kii af ka sheegay inuu eegayo aqoonsiga somaliland ay ka firsanayaan marka de intaasaan kaga baxay haddaba su-aal ay weydiinaysana waa idin furantay haddii aan su-aasha ugu horeysa ku weydiiyo dad badani waxay isweydiinayaan somalilan iyo halkaa gaadhsiiyey oo ka caawiyey in waraaqaheeda iyo arrimaha aqoonsigeedu uu donald trump gaadhay dee waan igan kuu sheegay hay-adahan ayaa xidhiir la leh imka hay-addan heritage foundation barnaamijka uu ku shaqaynayo donald trump ee project 2025 iyagaa soo diyaariyey soo sameeyey u geeyey u bandhigay markaa daraasadahan somaliland ku saabsana iyaga iyo qolooyinkan kale hay-adahan iyo raggan congressmanka sida uu ted cruz ugu gudbiyey markii ugu dambeysay iyagaa u gudbiyey kolley dee safaaraddeena washington ku taala maxaa washington door weyn bay ka qaadanaysaa macluumaadka wixii looga baahdo inay daba socdaan inay la kulmaan doorkaasi wuu jiraa madaxweyne siinaayo allah yarxamo waa kii tegey isagu wafdi uu la socdaa maraykan madaxweynihii hore musabixi cabdi isagoo qudhiis ugu tegey maraykan oo hay-adda naftarkeeda way kulmeen markaas siyaabo badan baa dee ay u gaadhaysaa donald trump inuu helo muxuu ahaa codsiga nagu ictiraaf somaliland very clear qorsoodaye maaha waxay leeyihiin waa gobol ka mid a soomaaliya marka inuu ka go'o dee dastuurkoodana kuma qora say sheegayaan madaxweynihii ku dhaqaaqay inuu fasaxana dee gurigiisaa baahaya marka inay mar walba dhahaan waa naga mid inagoo dee kaba hor qaadanay xorriyadda oo 4 casho inoo dhexayso intaasoo wadaya ictiraaftay inay haddana dhahaan annaga ay naga mid yihiin waa khalad caalamkana wuu arkaa oo caalamku waa kan qiraya inay baadil tahay waxyaabahan ay ku dacwoonayaan marka waxay isweydiinayaan aqoon-yahankii somalilan iyo siyaasiyiintii arrimaha dibadda ay aada uga hadli jiray hadda kama hadlayaan aqoonsiga iyo arrimahan dhibaato maxaa keenaya inay ka hadli waayeen oo aamusan wallaahi qof walba su-aashaa waa isweydiinaya ma aha un aqoon-yahanada gebigeennaba qof hadal haya waa yaryahay
waxay masalan halkaa khayriyada oo kale dadku isugu soo baxo sidii beriga aanu isticmaalka daan waan markii la ereeyay 60kii marka anaga dadka waaweyn ka muxuu ahaa dirdirhanayn marka khayriyada in la isugu soo baxo habeen walba waa ciyaalku isku soo arjiray dhalinyaradu haddii wasaaradda arrimaha dibadda ama dawladdu ay qaban qaabiso in la isugu soo baxo oo la taageero mashruuca ictiraafka aad iyo aad bay wanaagsan lahayd oo sawiradaas meel walba way gaarayaan haddii imika masalan la tago khayriyada Donald Trump sawirkiisa iyo calaamada Mareykanka la qaato wax weyn bay ka tiri lahayd laakiin waxaad mood aqoonyahanada noocan soo kale inta qabyaalad bay ka hadlayaan waxaan kale ka hadlayaan mucaaradin wax bay ka hadlayaan marka waxa wanaagsan aan kula talinayaa waxa jira qoloyin imika isbaabulay oo la baxay magaca indheergaradka Soomaaliland wali waxa qabteen ma aragno ama waxay soo bandhigeen ama daraasadii sameeyeen ama ictiraaf ka hadleen ama dhaqaale ka hadleen ama ma hayno haddana title bay qaateen waa laga yaabaa inay siyaasadda uga jeedaan inay ku soo baxaan ama hadhowta meelaha ka galaan xisbiyada marka kuwaas oo kale wax ay ahayd maadaama ay yihiin dheergaradkii ummadda in ayagu soo bandhigaan ka doodaan daraasada sameeyaan tan oo kale ah ay sameynayaan muxuu ahaa hay-adaha dee ajnabiga ahayd jaamacadaha ka mid ah dhowr iyo 20 jaamacad baa waddanka jira oo mid walba facultiga siyaasadda facultiga dhaqaale haddana waxay qabanayaan iyo waxay soo diyaargareeyeen iyo waxay ka doodayaan arkimaysid marka jaamacaduna waxa weeyaan waa meelaha dee muxuu ahaa u baahan in lagu karkariyo qodbadan oo kale oo loo bandhigo caalamka Soomaaliya loo soo bandhigo la geeyo forumska internationalka marka halkaa aynu ka horudnaa runtii waxyaabo badan baynu ka faa'iideynaa oo waxaa ka mid horta baasaboor aad ku dhoofto waad xaja ku qabto xitaa iyo cibrada ayaa helaysa oo imika qofka xajka qabanaya waa inuu baasaboor ku soo qaataa waa beedkii ilaahay weeye haddana wax looga xamar ka soo qaado baasaboor waa ta ugu yar number 2 waxaad gelaysaa waxa la bilateral agreements hay'adaha dawladaha caalamiga ah ilaa lagu ictiraafo ama tahay dawlad la ictiraafay kulma geli karaan heshiis kulma geli karaan waxa ka mid ah imika bank oo kale ama Soomaaliland oo kale mara waxa Swift waxa weeyaan lacagaha ayaa la isugu diraa malihin ilaa lagu ictiraafo waa noqdo dawlad ma yeelan kartid waa sharcigooda haddii se laakiin la ictiraaf weyn oo yeelanayo Swift oo lacagta maanta irtaa Britain gaaraysa Mareykan ilsi baad furaysaa madrad hay-adaha caalamiga ah sida masalan International Monetary Fundka World Banka toos baad loo macaamilaysaa lacag kama ahaanaysaa mashruucyada horumarinta ee wadooyinka imika ay u baahanayo kale ay ku margareeyaan 30 sanood baa lagu amaahanayaa lacag aad ku bixiso yar qaarna grant baa lagu siinayaa marka waxaas oo dhan naga maqan oo imika wadadaan leenahay buraayo oo hargeysa muxuu iroo keeni waay xagoo ka keenay waa in dawladda la bariyaa ilaa 200 milyan ma haysanaa marka imika wax u bariyo taga waa bariyo laakiin hadda dawlad tahay heshiis bad galaysa ama hiya 200 milyan waxaan ku bixinayaa 30 sanood interest iga dhaafa waxyaabo badan baa marka waxyaabo badan bay faa'iido leedahay muxuu ahaa xamsa wowo horyaal TV Hargeysa tijaabi nasiibkaaga oo ka qayb qaado qiimo dhimista ballaaran ee shirkadda Bluecom ugu talagashay macaamiisheeda cusub sanadkan wareejiga ku guulayso qiimo dhimis u dhaxaysa 5 ilaa 30% oo hel internet xawaarihiisu sareeyo kaliya taabo linkiga mobilkaaga lagu soo diray maxaad sugaysaa wareeji oo ku guulayso internet xawaarihiisu sareeyo